وعادي وعادي سير ما قروح دي سير كعدين هيا بكو كينيا يا بردي والواليس وديابس horta anigu way ogtahay hooyaday aabbahay aad baan u jecelahay noloshii yaraanteedii ilaa hadda mustaqbalkii hore mar bay la jecel yihiin de walaal habaarna ma qaadan karo nin wan heli kara laakiin waalid ma heli karo ma shaalku wadiiteeda kale ma ogtahay inaan xildhibaan dhalahay aad iyo in hooyaday taajiriin ka soo jeedo taajiriin ka soo jeedo ma ogtahay aad iyo gurigayga halka mar aan saa u maro dahab baa lagu dul daadiyo ma ogtahay dharka noocan eeg ku karbashada guriga heerimiga karbashada ku jira eeg maxaa aniga mar bay ku soo xidhanaysaa dharkayga inaad wax ka sheegto ma fiicna أنا كون منك حشيش كحفظة كوران كأركابا سموج هذا الظروف iyo baahida ay gaga faa'iideysanayso ka waran hawlaheenii jacaylkeeni كم مريان jacaylkeeni hawlaheenii dadka oo dhammaad u sheegto tirinkaas aan la sheekaysta حاجة إلهي مهدي بنقول لهم هذا تيرد نم هاي عمر كان نكو ما مريك كان بيشو شوقة إن أنت تيركو في لانده وإن تينو قل هذا العقل استدرس العلامة إنه نيجي نقول سبح يسوع معها إن أنت إنه نقول سبح يا وين نسينا أنا ما حاجة داير هذا خاغل عندك هوري ما يسأ مرت هذا وعكت يا ماذا يجري هذا ما أنا يجري هاي مرت هذا وينها يقطع وعادي سير ما يقروح دي سير كعدين هيا بكو كينيا يا بردي والواليس وديابس سقالي صار راي يا ابو الحاج وك سلام يا فرحتي ما لك لبطان ودغي ما انا سركه هي نهوي دويد دهول بن ودناني odayg مداه فرادنسين ما دahab iyo waxaan raadinay xitaa odayg bay la soo hadlay aabi hay wuxuu dhinan qurba jooga oo dadkan jiimarka martay murqaale qurxa badan la ayaan hay lacagna haysta ma sha wala naga dhigaa waxaan ka jiimarka teemay hooyadan ku siin waan ku siinay odaygina wuxuu dhinantana odaygina iimanaya ha hay marka hooy macana waxaan doonayaa ninkan day ka qaabisho ma garanaysa kulli ku dhalay fardnimadii dhiigayga baad leedahay hay marka hooy iga qaabin ninka hada hooy iga qaabil kulli idina diiday ma ko garanta inaan ku kalsoonahay hooy waa in mustaqbal oo hadaf leh oo inaan yar oo imka ka soo kacay ayadoo nin aan arkin oo qurbaha jooga wuxuu doona sameyn karo hooy siinaysa teel arag wax sheeg ma yaaba haba arkay iskaranaya ana yaqaanino isku shaqo yihiin oo iskaranaya si fiican ku garanaya kulli ama adigu wax qof adeegto dad wax dib jirin xaraaminay balaaye baas oo dhamaan aan ku ogolaynde waxaan doonayaa nin lacag haysta adduun maxamed tareeyo mid aan jecel wuu tara hooy adduun baa wax tara gabkiisaba wuu tara adduun ma garata marka hooy maxaad wajka la xumaynaysaa فرح أنا واحد قصي فكري واحد حدا لا يلبس كي يسأل سوى هجاجين لهايو حري عن سوق هذا التراد هذا ويحكي كله هجاجين لها ما كفكرية أنا وتسعد ما هو هذا اللي يقص علينا نو يقص عليك هذا دعاء قاعدة ونكود عيننا وضيق نكود عينيا محيط ترسس نهاوش كل ما عيننا والموت أنا نتشعر هاي شو سنسوي السعودية وأنت صلوا كم عدد لما يسوي على كان استعلاء مركب أنا نتشارك وهاينو مراكز جوجو العقد زاوية حرية نرى إنا يروحنا حيرانا يهري هرد بس عدا شايل معايا شايل ما شغال العقد شغال شايل ما نقنا عنو وحاي جماعة كين كرتيد ما كله هي المهر كوين ودعو مش هسمع كده ماته وركلا يبصعين ماي هذا نستعلا أنا وهذا نستعلا هاي تدور حوض تبع العقد ما نسكت على ندم حيران مني ما نسكت على أنا ونون هنا مجلس ويجد وحبه اللي ميسان الدعاء ورهي يبصعين وانا قبل يقول جديد مرد اللعب عن هاي حسنيا لكن أرجع قلبي يسدوي الميني ما لا يقول كتر قفانا قوم بلا يقول يرع أنا اللي يرير ذا بس هلا ينقلت شانا يا وحي وكردياني يا ونفسيكم يساعدوا يعني حاولي يا باينا مركض من ديدي كرها وار مقالا كرو دنك هذا شلون كراعي السوق وبحي هلو معاني ورا ساعتها ما يحوي ما يدعين قالي ان ارن بدلنا كارها يصير كردي ها هيوغاي قالي إما هو صباحي
waxa weeyaan mar haddii inantaydii nin dibadda jooga loo keenay labada inana laba dumaraan kala siinaya aroosiyaan dhisaya gabiga arooska dhammaan maayo hooyo maxaa dhacay aawdhan ululululaasan haysay maantana waa mashxaradii magarta niyadda aroos hadda niyaddan arooska joogo kale mabaan joogaba maxaa dhacay inantii waxa weeye horta nin baan siinaanay odaygii inantii odaygii baa nin dibadda inantii jooga bareefadada dhigata saa nin loo siiya hooyo macaani horta dhegayso haye odaygii baa horta nin dibadda jooga odayga daa markiisa la ka hor iman maysee haye ila macdaabaanka haa waxa weeyaa nin dibadda joogaba horta inantii soo karta inantii nin dibadda jooga baa la siinaya sax meherkii oo kaliya taa hadhay shiyadiina waanu sheego waanu kala dhammaysanaa haye saasaanu isugu ducaynaynaa saasoo arooska ku dhacaya dee wakaa hooyo maxaad iga tiri arrinta de hooyo horta reer inanta haddii la guursado oo weliba odaygii la bixiyo la siiyey inaan dabadda ka yimi waa caadi sax an markii hore waxaan uga baqay in xabaglayaashan iyo qaarna ay la hadalkiyo reermi iyo wax guursada ma inaga ramiy xoogale waxinoo keeni maayaan dad xamuleeri maadaama ma nihin dabeedna marka dambena ay noqoto kaa dhimeeyo kugu dhimeeyo inagu aynu dhisno inagu lacagta ka bixino inagu aan hawl daba dib u galno sax laakiin haddii uu ninkaas dhisayo lacagtiisa haysto dee waxay la tahay uun meherkanu kala qaybsana waxaan leeyahay inanta aynu bixino markaa hooyo furaati saa dahbad cid baad mid garaacaysaa maalinta aad gabadhaada bixin xeriya qaadaysid ayaa mid garaac lagaaga baahan yahay laakiin waxaa baqay inaad maalinta ku dhexdhexdid moosaan ugu dhex dhaca hooyo aniga naagina tartabaysaa ma joogto gobolka ma garata haa waxaan kugu wax walba saasaan nooc walba cagaha daah baan gashanaysa gacmaayo miyaad maqasho cagaha daah la geliye may gabadha gashanaysa baana ma garata haa dharka adduunka ugu qaalisan haa baan gashanaya inanta mar daayni jabin alxamdulillah inaan maqlayso wanaagsan dad fiican baan dhalaan ogeey anaa duca qabay reerka iyagii hore baa ka duca oo iyadu ma yeeshay talow ha mar waan dhamaysanay horta arrinka maanta kugu yeedhaan ku lahaa ii kale arrin baa jireen waa garta inaan kuu sheegan doonaya waay dee laakiin saan kuugu sheega qaali wallaahi kuma sheegi kara kuma sheegi karayaa maya waan kuu sheegayaa ii sheego caadiyo waxaanad qarinaysid wax maxaa ku dhacay waxba qaadmay dhicina odogta aniga aabbahay xaggaasu jooga maraykan buu joogaa maraykan muu yimi maya muu imanine aabbahay wuxuu yidhi anigana iguma odhan hooyadii kusoo yidhi waa garta gabadhadan aadka u jeclaa ee aadka quruxda badan leh waxaan doonaya inaan mustaqbal fiican u sameeyo waa garta kadibna hooyo waxay igu warbayshday waxay igu tiraahday waxaa la rabaa in lagu siiyo wiil wiil adigaa lagu siinayaa muu jecel la siinaya adigu aday ku aabbaa dheheen yidhi yaa aday ku dheheen miyaa haa marka adna maxaad samaysay go-aan noocee baad gaadhay anma adiga la-aanta ma go-aan ma gaari karo waxaas bal isaga go-aan la soo gaari horta wallaahi saan u faraxsanaaya sidaad moraalka igu bedeshay laba isla maaha waan faraxsanaa waan soo labistay waan xaslaa jacaylkaaga iyo gabadhaada mustaqbalka waqti la qaado dee arrinkan aad ii sheegtana waa arrin aad iyo aad runtii aan uga naxay waxay ka dhigantay cirka iyo dhulku way igu soo dumeen hay marka go-aan noocee baad qaadatay qof go-aanka go-ayo waa adiga faamliguna adigay wax kula doonayaan faamliguna anigana ima arki karaan waxa ay igu naceen hadda waxa weeyaan lacag la-aan maanta haddii aan lacag haysan lahaa waan noqon lahaa nin taajira reerkiinoo dhan saasay dabar xarin lahayn cagaha ay maydhi lahaayeen marka adigu go-aanka aad gaadhay bal ii sheeg anna markaasaan go-aan kuu sheegay qorayaan markaasaan gaadhay horta aniga waa ogtahay hooyaday aabbahay aad baan u jecelahay nolosheedii yaraanteedii ilaa hadda mustaqbalii hore mar bay la jecel yihiin dee walaal habaarna ma qaadan karo nin wan heli kara laakiin waalid ma heli karo marka hooyaday aabbayna aad baan u jecelahay go-aankoodana kama soo horjeesan karo adigana maanta waxa ku reebay ma odhan karo hooyaday aabbahay laakiin waxa ku reebay nasiibkaaga ku saacidi waayey iyo adduun la-aanta aad adduun laadahay fahamtee aniguna waxaan go-aan ku gaaray inaan ninkaa raaco ay hooyadii aabba igu darayaan aan guursado adigana waxaan rajaynaya ducada ay soo raaci doonti walaalo sawirada iyo hambalyadana dhankaaga waayo duunyo buuxo bad baa lagaga tagaa horta sagaal aad iyo aad baad umahadsan tahay in badanna wada hadashay anna dee arrin yar baan kugu darsanaya maadaama go-aanku labadeennaba aan wada leenahay waan isjeclaadna wada jeclayd marka haddii waalidku labada qof ay isjecel isu diido arrinkaa bannaanna waxa weeye qofku hadduu salaadiisu tukado soontiisana uu ilaashado oo qof musliman yahay gabadhana loo diido
waxa weeye inuu gabadha la tago la baxsado hadhowna shiikhya meelaha jooga meelaha aan ka meersado arrinkaas aan ku soo kordhinay may walaalo may ma sameyn karo anu mana cararayo mana boodboodayo hooyadii aabe go'aan bi soo gaadheen inta sana la soo kordhin soo wax la soo baray maanta nin hooyadii aabe ay ugu dareen oo ducadoodu ila socoto walaal ma diidi karo adiga laakiin walaalo wan ka tii karaa wan ku ilaawi karaa wan ma ka sabri kara laakiin hooyadii aabe walaalo macaan ma diidi karo fahamtay waxa ku leeyahay walaal macaan sorry raaliho waqtiga ku saacid waayay dhaqaale la'aan dee walaal macaan waxba kuma qaban karo maanta aniguna ku jeclay wad ogtahay dahabkii hooyadii lahayd hantidii hooyadii baan ku siinaya ku lahaa igu meherso laakiin walaal waqtigeena saacid waayay sorry raaliho walaal macaan haddana waan kaas tagayaa ducada iyo hambaliyada waan kaas sugaya imka sagal wada tagtay miya ma anu kaamaan tagin waqtigeena kala kaxeeyay taas gabadha quraan eeganayay in islaam mustaqbalka ka dhigo toddobaadkan aan meherku diyaar garoobayay ee caawinaysay halkaas waa tamaanta kaga dhaqaaqday waa nin raga noqdaa nafsigu waa balaayo waxaan qofkan undaalka ka barooranaya meeshu waa hundaal walaalay waxaanoo cabashaay adigu yaad ahayd maxaad rabtaa dee waxaanaad dhuraysaan dhegeysan kari waayo walaalo cidna meesha kulamay fadhiyin koolna problemka naysto dhibaatada naystada ogtahay miyaa problemka yaa la baroortaa walaa waa la adkaystaa saaxiib nin ragaa tahaye ragguna talada waa isku leeyahay tusaalahaye dee arrinkaygan kula wadaagaya haddii aad wax igala qaban karaysid wax igala qabo wax kaala qabtaa miya wax alla wuxuu imaad sheegin walaale ila qof marka wuxuu sheegto wax kaala qabtaa haddaan kuu sheegayaa ii aakhir weeye inaad gabadh baan isjeclayn gabadhaasuna reer family lacag lay ka dhalatay wayna xaaji lacag haa islaantii baa dhashay gaadhiga wadan jirtay guriga halkaas guriga weyne aydiyo waxaas ilaaliyaan iyo marka gabadhii annagoo hawshan oo dhantaa isla toddobaadkan meherso dee lacagtaa kuu dhammayd iyadu kuma ay dhammayn lacagtuna way dhammayd iyaduna way dhammayd marka inan dibadda ka yimi oo kelina wato oo ay wax isu yihiin ayaa la siiyey marka gabadhina lacagtii baa lacag kale lagu daray marka gabadhii saasay iga tagtay inaad ere maxaa tala ah maxaa tusaale ah dee adigu hays jilcine gabadha soo xiriirid kuma dhexeeyay labada lacagayo midii soo dir ku dhe dee taa ninka iyo teeda deelma lacag baan hayay iyadu miyaanay laba qaadan iminka ninkuna mid buu sitay iyana mid bay haysatay oo ina xaaji lacag bay hayd labada midii soo dhiibtay baan ku afuusaadeen ila baroorta ku jiri maysid walaal iyo qiiqdan manta taladaas mataasaa maya dee gabadhii soo ku soo ceshtaa gabadhi celisiba maahaba lacagtu maynoo soo celisid gabadhu tagtaye labada lacagayo ninkeeduna ingiriisku ka yimi waad ugu tibsan kanada UK waa ingiriiska waxa weeye UK-da lacagtii laga keenay iyo lacagtii xaaji lacag dee inaad xaq maaha ku dha inaad isku darsata ama ta UK qaado ama ta xaaji lacag qaado mid aniga iska daa waa nafsiga helay iska daa